ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan RRU ayaa xalay saqdi dhexe gurigiisa kala baxday barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guule Daahir Samatar kuwaasoo isla xalayba u dhaadhiciyay dhinaca magaalada Berbera taasoo la sheegay inuu ku jiro oo ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaaladaasi Berbera xariga Guule Daahir Samatar ayaa ku soo beemay waqti ay magaalada Burco ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ciidamada RRU ayaa xalay la sheegay in galelafeen oo fitil faatir u qaadeen gurigii u deganaa barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer waqtigii ay qabanayeen Ifraax Diiriye Cawad oo ah xaaskii barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer ee xalay gurigeeda ay howlgalka ka fuliyeen ciidamada RRU oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ciidamada RRU ay saqdi dhexe u soo daatay gurigeeda isla markaana argagax iyo cabsi ku abuureen caruurtii yaryareed ee hurday guriga isla markaana ay burburiyeen gurigii kaas oo waxaan ku xalayto muxsaad u foolxumay ayna la kulantay saacadu markay ahayd labadii habeenimo taasoo walba rabshada iyo dhibaatada ay wadeen inta loo yeeray ayuu imanayay maxay tahay saldhiga looma yeedhin sidii filimaantii khayminta bana loo soo daatay laad bana lagu daafidayay areen kula hadlaya markaan ku wuri waa maxay dhibaatadaada wadada dhaniya naag gurigoodii hurda wad garanaysaa warday sharciga maxamediya ma ahaan mareed ka xidhan naga jooga aniga labadan dhood baa ku dhiftay aruurtii waa leeyahay la yaqaan la waan tusi doonaa afar baa imika naxdintii iga banadan guriga waa leeyahay burburiyay taas markiina la dhibaateeyay waa la gaxaystay waxaan gaxaystay oo dhibaatada ka dambeeyay ninka aad xirsi ciidanka naga noo soo adeegsaday waxaan u farayaa dawladda Soomaaliland Maxamed Axmed Siidaayo asalaam buha asalaam soo ahaa haddana wuxuu ka dhidhiyay oo duurgal u noqday dhibaatadii faqash ku taalay dadka la bixi jiray tii ayuu imika Axmed Siidaayo dawladdiisu ay bilowday oo dadkii la baxayo waxaan leeyahay madaxweyne toos oo hurdada ka tooso caalamka eeg oo saxaafadda la soco waxa ku darsanaya wasiir cali waracade wasiir amaankaada suga in dibad 10 kiilo la soo qaata ma aha dadku argixisa ma aha sistamkii dawladnimo soo dhis oo arinta wax talaabo sharciya ka qaad wasiir ayaan ku leenahay mas'uuliyiinta ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa sidii caadada iyagu ka qaabsaday inay ka hadlaan howlgallada ciidamada RRU ka fuliyeen magaalada Burco ciidamada RRU ayaa sanadkii tagay ilaa 5 howlgal ka sameeyay gudaha magaalada Burco kuwaas oo ku beegsanayay dadka lagu tuusay inay xiriir la leeyihiin ururada al-shabaab hase yeeshee howlgalkan xalay ka fuliyeen magaalada Burco ayaa waxa uu ka duwanaa kuwaasi hore Kays Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.